في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين barnaamijka socdaalka guri waa barnaamij toddobaadle ah laguna falanqeynayo xaaladda qurba-joogta Soomaaliyeed waxyaabihii ay kala kulmeen qurbaha waa sidee guurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku soo qaaradan Yurub tahriibka dheeraa ee loo soo galay qaaradan Yurub maxaa lagala kulmay maxay saaxiibadii laga qaway markii la joogay Afrika qaaradda Yurub markii la yimid maxaa lagala kulmay dhalinyarada Soomaaliyeed door intee leeg ay ka ciyaari karayaan samata bixinta xaaladda dalka Soomaaliya زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى qurba-joogta Soomaaliyeed maxaa u diiday in ay sameystaan hal community ay ku midaysan yihiin si ay wax ugu qabtaan xaaladda ka jirta dalkii hooyo geesta kale su'aasha taagan waxay tahay maxaa lagu faa'iiday qurbaha maxaa lagu khasaaray cidii daneynayso barnaamijkan inay si toos ah ugu xirnaato booqo page-ka Facebook ku qor socdaalka guri ama kala soo xiriir ciwaankayga guri@somalisat.tv qiso walba qarnigeeda qaarad waliba qoomkeeda dal walibana dadkiisa barnaamijka qodobadaasi qodobo kale muhiim ah ayaan ku faaqidi doona kala soco TV-ga caalamiga ee Somalisat في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا أزف الفراق وظلنا بردائه مرت سريعا وانقضت أعوامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم dalka Soomaaliya oo muddo 20 sano ka badan dawlad la'aan ah sidoo kale lagu tiriyo meelaha dunida ugu khatarta badan ayaa waxa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dadkiisa haysata kamid ah shaqo la'aan baasan maadaama ay aad u yar yihiin fursadaha dalka dhexdiisa shaqooyinka loogu heli karo
وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا baagamuudada oo ah aafo saameysay guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa si gaar ah u taawatay daayirta haba ugu darnaadeen kuwoodii wax baratay maadaama ay dhaxalsiisay niyad jab iyo in ay ka rajo dhigaan yoolal badan oo ay hiigsanayeen si ay noloshooda u horumariyaan in badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba uma suurto gasho in markii ay dugsiyada sare iyo jaamacadaha ka baxaan ay shaqooyin helaan waxayna arintaasi ku beertaa in maankooda ay ku soo dhacaan fikrado hor leh kuwaas oo mararka qaar ay naftooda halis u geliyaan dhalinyarada qaarkoodna waxay doorbideen inay noqdaan burcadbadeed qafaasha maraakiibta isaga kala goosha xeebaha dalka Soomaaliya kadibna ku raadsa lacag madax furasha dhalinyarada qaarkoodna waxay u sahay qaataan sida ay ugu hayaami lahaayeen dalalka qurbaha oo ay aaminsan yihiin in ay ka heli doonaan nolol dhaanta tan dalka taala iyo weliba shaqooyin ay hanti fiican ku kasban karaan markii la soo galayo socdaalka ku aadan imaanshaha qaaradan Yurub ma aha mid fudud socdaalkaasi waxa uu yahay mid aad iyo aad u adag sidoo kale dhibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaarta dhalinyarada Soomaaliyeed haba ugu darnaadeen dumarka Soomaaliyeed oo loo geysto kufsi xarig iyo jirdil أزف الفراق وأضلنا بردائه مرت سريعا وانقضى dadka Soomaaliyeed badankoodii markii la soo hadal qaado taariib iyo socdaalo qartajeex ah oo aan sharci ku dhisnayn waxay durba soo xasuustaan taariibka xagga badda ah ay Soomaalidu ku leedeen si badda u dhaxaysa Yemen iyo Soomaaliya taariibkaasi oo sanadkiiba ku galaafata nolosha qaxooti kumanaan ah oo u badan Soomaali marka la xuso ereyga tacaddi xadgudub iyo waxyaalo ka baxsan aadamiga oo loo geysanayo dadka taariibaya waxa durba soo xasuusanaysa dadka la socda doonyaha taariibka ah ee lagu daadiyo badweynta aan laga soo badbaadin kareynin عام 2009 عامنا نهديك يا أمي رحيقة فوق نهدي إلى كل الأحبة dhalinyaro fara badan ayaa ku geeriyoodeen xeebaha u dhaxeeya Liibiya iyo dalka Italy وتبتلوا لله يعلو شأننا فدعاؤكم في الغيب خير هدية تهدي خطانا في دجى أيامنا dhalinyaro kalena waxa ay ku leedeen xeebaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Yemen kadib markii laga daadiyay doonta ay la socdeen haddaba dhibaatooyinka fara badan ee soo gaaray dhalinyarada Soomaaliyeed ma ahan mid halkan lagu soo koobi karayo dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed maalinba maalinta ka sii dambaysa waa ay sii kordhaysaa dhalinyaradii ku sugnayd gudihii dalkeena waxa ay ku haminayaan inay ka soo hayaamaan dalka Soomaaliya iyagoo ku fikiraya haddii ay soo gaaraan qurbaha ay heli doonaan nolol ka wacan tan ay hadda ku haystaan gudaha dalka Soomaaliya صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا أزف الفراق وأضلنا بردائه مرت سريعا وانقضت أعوامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي
قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بتنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا، نهديك يا أمي رحيق تفوق، نهدي إلى كل الأحبة جهدنا. على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا، نهديك يا أمي رحيق تفوق، نهدي إلى كل الأحبة جهدنا. فتقبلوا منا عظيم تحية وتبتلوا لله يعلو شأننا، فدعاؤكم في الغيب خير هدية تهدي خطانا في دجى أيامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. الله قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. aan u soo noqdo barnaamijkaygii socdaalka goley oo toddobaadkan ay marti ugu yihiin gudoomiyaha hay-adda White Flag Soomaaliya Cumar Axmed Cumar Gurey iyo gudoomiye ku-xigeenka hay-addaasi Daawud Maxamed Maxamuud. لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا. يا معهدي يا خير daawud maxamed iyo cumar gurey waxay kaalin weyn ay ka qaateen gargaarkii balaarnaa ee sanadkii hore la gaarsiinayay gudaha dalka Soomaaliya kolkii ay abaaraha ku dhufteen, iyagoo wadooyinkii istaagay lacag fara badan oo u aruuriyay walaalahooda Soomaaliyeed. ugu horreyn waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha hay-adda White Flag Cumar Gurey oo inooga sheekeynaya kulmay markii uu yimid dalkani Jarmalka. ها قولي سؤال شيء ويديس هرت وحواي وقت عن ماشان صوب قلي سيدة بوحة إهاد كن سجال بقول يو سجاشن كي عن ماشان إمد أنا جو دائر أها مركز عبسي بدلنا وجرتي مرك وحواي مركان إمد أندر إيج مركان أها وقت جاس وحي إهاد سجاشن يكوي عمل فمن الجرمل عيال اللي يجي ما دام عن نرشيد عني كل يسكو في اللانكرين مركا واجا فملك مرك la ii geeyay cabsi aad u balaarna horta aniga ay qabatay oo isdhahay dadkan xaal kulmi doonta dad ajnabi ah oo luqad kale ku hadlo oo diin kala haysta oo anigana under age maadaama aan ahay cabsidaas aad ay horta igu fara badneed laakiin aniga sida u fikiraya ma naqan nasiib wanaag markaan imid iskuulkii aan adiga waxbarashadeedii iyo waxayga aad iga caawiyeen dadkaas marka haddaan kaaga waramo markaas kadib adiga sagaashameeyay markaan imid ardayaan noqday iskuulkii galay iskuulkii ka baxay luqadii waa dareemi kartaa qof under age ah oo markaas yimid nolosha oo sida u bilaabayo qof walba oo Soomaali ah under age ha ahaado masni weyn ha ahaado waa dareemi kartaa sidee tahay marka adiga nolosheeda waxa yar kadib dadkii markaan arkay dad aad waxbarashadeeda ugu fikiraayo oonan igu soo faragelinayna xagga diinta ya kalsooni badan ay gashay marka ay gashay kadib waxbarashadeeda sii watay wadankan markaas aad u burbursanaayo contactigan aad u yaraay markii waxay ahayd contactiga family-ka ka maqan yahay iyo anigoo dad Jarmal la ii geeyay marka aan taas ay dhacday kadib waxbarashadeeda ka baxay waxaan nasiib u yeeshay 2003 inaan Soomaaliya tago Soomaaliya markaan tagay ayaa horta ani ahaan sideeda hurdada aan ka dhacay waqtiga imaanay sagaashanka ilaa 2003 ayaan meeshan joogay aan ku barbaaray waxbarashadeeda xafladkeeda iyo wax walba familkana contactiga aad u yaraay maadaama aadina dagaalkii burburkii قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا. يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. The White Flag مدن عمر أحمد ayaa waxa kamid ah waxyaabihii ugu dhiirigeliyay nin dhalinyaro Soomaaliyeed is abaabulay kaligiis aan ku tiirsaneen wax hay'ada ama dawladda ama
social kale sida bulsho kale oo kale Soomaaliyeed oo aan cidna caawinayn haddana ku dhiiraday inuu barnaamijkan keligiis fuliyo ayaa horta kooka aad waxyaabaha ugu dhiirigeliyay inaan barnaamijkan ka qayb qaato midda labaad waayo aniga dalkii wax badan kama aan soo maqnayn waxaan ka warhaayay oo aan xaqiiqadeeda ama aan gurjoog u ahaa wax badan oo halkan haddii aan ka qabano dalkeena wax badan u tara midda ugu horeysana dal waliba waxaa horumar gaarsiiya dhalinyaradiisa dal walba oo maanta horumar gaaray waxaa horumarkaas sabab u ah dhalinyarada marka haddii aan nahay dhalinyaradeena qurbo joogta Soomaaliyeed waxaan ku dhiiranaynaa ama aan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan qurbaha ha noqoto wadamada Europe Scandinavian-kan waqooyiga America oo kale in ay u istaagaan waxqabadka bulshadooda Soomaaliyeed waayo dhalintii قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب abaarihii sanadkii hore ku dhuftay geega Soomaaliya waxa uu wada damqaday da'yar iyo da'weyn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogto waxayna bilaabeen inay gargaar isdaba joog ay gaarsiiyaan walaalahooda Soomaaliyeed ee abaarihii baasanaha ku dhuftay dalka Soomaaliya hay'adda The White Flag of Somalia oo ka diiwaan gashan dalkan Jarmalka waxa ay ka mid ahayd hay'adihii gargaarka sida isdaba joog ah u gaarsiinaysay gudaha dalka Soomaaliya وكان قدوميها هيئة The White Flag of Somalia عمر أحمد عمر قري oo ka warbixinaya meelihii ay gaarsiiyeen gargaarka meelaha aan wax gaarsiinay horta waa sida Muqdisho aan waxaan gaarsiinay qalab caafimaad iyo daawooyin oo markaas aad loogu baahnay ilaa wadanka aad ugu bursanay meelaha wax gaarsiinay waxa kamid iskuulaadka Muqdisho ku yaalo mid kamid ah oo aan geenay material iyo hadii ahaan lahayn computer iyo hadii ahaan lahayn buugaag iyo qalimaan oo ardayda iskuulaadka dugsiga hoose dhigtaan qalabaad aad u badan ayagana gaarsiinay waxaan laakiin rajada aan qabno waxay tahay ma aha kaliya Muqdisho ee Soomaaliya inteeda kale tuulooyinka oo aad ugu baahan yihiin dadkaas xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada inaan ka taakuleeno laakiin anaga kaliya ma ahan waxaan rabno oo naga go'an horta waxay tahay Soomaaliya meel walba waxaan ku rajaweynahay dhalinyarada oo wadankan sida Europe oo imaadeen oo ka jaanis fiican kuwa Soomaaliya jooga in ay ayagana ay u istaagaan ururkeeno kala ah sideenoo kale oo inay damqadaan ayaan rajaynaynaa si aan kulligeen ileen haddaan wax la isla qaban arrintu way adkaanaysaa marka Soomaalida kale waxaan ka rajaynayaa in ay ayagana sidaas oo kale u istaagaan inay wadanka wax ka qabtaan رقابنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا نمضي اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا
أزف الفراق وأظلنا بردائه مرت سريعا وانقضت أعوامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق. dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay soo gaareen qurbaha intiisa kale waxa ay la kulmeen dalal horumaray oo la tartamaya dunida inteeda kale dadyo aan isku afahayn oo aan isku dhaqan ahayn oo aan isku diin ahayn haddana ay ka dhaxayso wada noolaansho dhalinyarada qaarkood waxa ay isweydiiyaan waxyaabaha u diiday in ay wada noolaadaan ummadda Soomaaliyeed waa kan gudoomiye ku-xigeenka hay'adda The White Flag of Somalia Daud Mohamed Maxamuud oo ka sheekeynaya waxyaabaha uu la kulmay iyo waxyaabaha uu isweydiiyo mararka qaarkood shakhsiyan horta waxyaabaha aan ku fikiro ama aan aadka ugu fikiro waxaa ka mid ah markii aan imid wadamada Yurub oo kale waxaan arkaa dhalinyaro fara badan oo aan isku dhaqan ahayn oo aan isku diin ahayn oo aan isku luqad ahayn haddana wada xiriira isku yimaada iskaalmeeya wax wada tara ee ka go'an tahay inay dalalkoodii ama dalkoodii wax u wada qabtaan marka waxyaabaha aniga aadka iigu weynaa waxa ka mid ah maxaa anaga noo diiday haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed ama dhalinta Soomaaliyeed in aan sida dhalinyaradaas oo kale aan ku dayano oo aan wax wada qabsano maadaama aan nahay inaga dad isku luqada isku diina isku dhaqana isku hadala oo wax waliba iskaga mida oo haddana meel wada dega culture-kooda waxba aan ku kala duwanayn marka waxaan jeclaan lahaa inaan mid noqono oo aan aad isu dhiirigelin oo aan isku imaano dhalinyaradeenna Soomaaliyeed ha noqdeen ururo ama hay'ado waayo wadan waliba waxa horumariya dhalinyaradiisa marka sidaas ay tahay aniga shakhsiyan waxaan jeclaan lahaa ama aan aad u jeclaan mar walibana ku fikiraan waligeena ku fikiri doonaa sidii aan isugu keeni lahayn dhalinyarada Soomaaliyeed ha noqdeen kuwa qurba joogta kuwa dalka ku haray intaba sidaan isaga kaalmeyn lahayn horumarka dalkeena inay gaarsiiyo daawadayaal waxaynu soo gaarinay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeega socdaalka golay barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu hayeen gudoomiyaha hay'adda The White Flag of Somalia ee dalkani Jarmalka Umar Ahmed Umar Gurey iyo sidoo kale waxaa marti ugu ahaa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda The White Flag of Somalia Daud Mohamed Maxamuud barnaamijka waxaa idin soo saaray anigoo ah Xatiftaah Xuseen Goley xagga film qaadista waa Liwaa Short farsamada iyo habeentana waa Nasro Cali Baasha intaan barnaamijkan barnaamij limid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayn anagoo isku duuban sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا barnaamijka socdaalka guri waa barnaamij toddobaadle ah laguna falanqeynayo xaaladda qurba joogta Soomaaliyeed waxyaabihii ay kala kulmeen qurbaha waa sidee guurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku soo qaaraddan Yurub tahriibka dheeraa ee loo soo galay qaaraddan Yurub maxaa lagala kulmay maxay saaxiidriyadii laga qaway markii la joogay Afrika qaaradda Yurub markii la yimidse maxaa lagala kulmay dhalinyarada Soomaaliyeed door intee leeg ayay ka ciyaari karayaan samata bixinta xaaladda dalka Soomaaliya
زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. نسعى إلى qurba joogta Soomaaliyeed maxaa u diiday in ay sameystaan hal community ay ku midaysan yihiin si ay wax ugu qabtaan xaaladda ka jirta dalkii hooyo. geesta kale su'aasha taagan waxay tahay maxaa lagu faa'iiday qurbaha maxaase lagu khasaaray. cidii daneynaysa barnaamijkan inay si toos ah ugu xirnaato booqo page-ka Facebook ku qor socdaalka guri ama kala soo xiriir ciwaankayga guri@somalisat.tv. qiso walba qarnigeeda qaarad waliba qoomkeeda dal walibana dadkiisa. barnaamijka qodobadaasi qodobo kale muhiim ah ayaan ku faaqidi doonaa. kala soco TV-ga caalamiga ee Somalisat. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا. قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا أزف الفراق وظلنا بردائه مرت سريعا وانقضت أعوامنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.